waxay ku sheekayn jireen maalin maalmaha ka mid a ayay goray cawli ka soo dul dhacday duurjoog oo idilin meel ay isugu timidoo ay cayaar ku tumanayso markii ay soo muuqatay baa waxaa loogu yeeray inay goobta soo gasho oo sacabka iyo jaanta ay ka qayb qaadato iyaduna hawraarsan bay tiri hase ahaatee haddiiba cayaartiisa luug baa ka galay waxay aragtay bahallo kale oo aan si wanaagsan goobta ugu jirin una cayaarayn dabadeed waxay goosatay iyaduna inta ay hagari meesha ka muuqato inaysan isdaalin taasoo lagu dareemay goray cawshaa wax dheerteeda taagnaa haldhaa damman oo isagu si hagar la'aana sacabada isugu garaacayay una jaamaynayay abbaar kadib ayuu arkay goray cawsha dhinaciisa taagani inaysan cayaarta sidiisa daacad uga ahayn markaas buu ku yidhi maxaad cayaarta u hakranaysaa ama maad si wanaagsan wax uga tuntid ama isaga baxdid se waxay ku jawaabtay cayaartu haddii ay hagaagtana lug baa iigu jirta haddii kalena waan kala baxaya dabadeedna waxay noqotay maahmaahmaanka qofka ku soo dhacda markuu arko ruux ka lagu dambeedinaya arrin uu wax ku leeyahay isaga oo aan daacad ka ahayn ama sida wax u socdaan aan ku jecsanayn amaba isbeddel dambe oo soo kordha ka dhul sugaaya